بسم الله الرحمن الرحيم سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعند وضياشة قدرينتا يقيمها ينغمضا اللابا نغلا سعودة جنال كان يوتيوب كإسماعيل عقيلة كسو دبادة برنامج دينا حساب بضان وهل كان aan idinku soo gudbinno waxayna ku dhex jirnaa qisadii luqmaanul xakiim ayaan ku guda jirnaa hadduu rabbi weyne raali ka noqdo halkan ayaan idinkugu soo gudbin doonaa insha allahu tacaala qaybtii labaad ee qisadan luqmaan waxa uu ku yidhi wiilkaygiyow hadday xumaantu tahay xabad qardal ah oo kale oo dhagax dhexdii ku sugnaatay ama samooyinka dhexdooda ama dhulka dhexdiisa wuu keeni allana waa uga xeel dheer haddii aad badda dhexdeeda ama buuraha dhexdeeda ay ku jirto walaxda ugu yar ee jiri karta alle wuu og yahay waxna kama qarsoona alle waa kan og quraanjo dulmaraysa ama dhexda kaga jirta dhagax ku dhex jira dhulka hoosii iyadoo ay habeen tahay tusaale waxaa kugu filan ayuu yidhi nebi yuunis iyo xuudkii liqay isaga oo 3 mugdo hoostii ku jira ayuu eebbe ducadii ka aqbalay qodobka kale ee luqmaan uu faray wiilkiisa waa inaanu ka aamusin xumaanta dadka uu farana samaha kana reebo xumaanta una sabro haddii ay dhibaato ka soo gaarto luqmaan waxa uu baray wiilkiisa in haddii wanaag uu sameeyo uu ka soo gaarayo dhibaato hadday dhacdana waa inaad u dhabar adeegtaa ayuu yidhi luqmaan arrintaasi waxay ka mid tahay umuuraha ugu wanaagsan qodobka kale ee uu faray waxa uu yahay luqmaan inaad lahaato akhlaaq wanaagsan hagaajisana la dhaqanka dadka hana iska weynayn oo ixtiraam qof kasta adigoo u eegeen midab ama dhalasho iyo wixii la mid ah ayuu yidhi hana ka jeedin ayuu yidhi luqmaan wejiga dadka dhulkana ha soconin adigoo kibirsan alle ma jecla mid kasta oo isla weyn oo faan badan kibirkuna ma ahan inaad xidhato maro qurux badan ama inaad lahaato hanti laakiin kibirka waxa uu yahay xaqa oo aad ka iilato iyo dadka oo aad yasto socodkaaga dhexdhexaad ha noqdo codkaaga hayso codkana waxaa ugu xun codka dameeraha macnaha waxa uu yahay ha u socon si gaabis ah oo cagajiid ah hana ordin adigoo socodka aad u dheeraynaya laakiin socodka ha noqdo dhexdhexaad sidoo kale ma wanaagsana codka dheer oo qaylada ah codka waxaa ugu wanaagsan inaannu dheeraan aadna u gaaban isla markaana dhexdhexaad noqdo isku soo wada duube luqmaanul xakiim wiilkiisa waxa uu siiyey waano wax ku ool ah allana waxa uu inoogu dhigay tusaale ku dayasho mudan eebbe ha ka raali noqday luqmaan iyo cid walba oo ku dhaqanta waanadiisa guud ahaan barnaamijkeenna maanta qaybtii labaad ee qisadii luqmaanul xakiim aynu kaga hadlaynay intaas ayaan ku soo gebagabaynaynaa inta barnaamijkan midkiis xiga aynu ku kulmi doonno waa walaalkiin saaxiibkiin ismaaciil oo idinkaga tegaya sidaasii nabadgelyo balse ha iloobin inaad janalka sabskraibe saarto sidoo kale aad like saarto barnaamijyadayna haddii aad ka heshay sidoo kale aad sii shargarayso muuqaalada gambaleelkana aad furato si aad u noqoto qofka koowaad ee hanta waxyaabaha xiisaha badan ee halkan aad idinku soo gudbinno inta barnaamijkan midkiis xiga aynu ku kulmi doonno sidaas iyo nabaadiino nooli kulanti dambe oo xiiso leh